السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo macalin Maxamuud cashkaan waxaynu ku arki doonaa 10 kaan erey meesha noo saaran ereyga koowaad waxaa loo aqriyaa notify isoo wargeli ama isoo sheeg yes waxa waayo inform me ama tell me isoo sheeg the teacher will notify students macalinka ardayda ayuu wax u sheegi doonaa yani ardayda uu akhbaar ama war ay u sheegi doonaa marka notify me hadaan ku dhaho isoo wargeli waa isoo sheeg ereyga labaad oblivious waa qofka marka aanu ka waramin agagaarkiis yani surroundings ama agagaarkiis waxa ka dhacay kama warqabo okay they are unaware of what is happening around them qofkaas ayaa yiraahdaa oblivious ereyga saddexaad odor waxa la yiraahdaa wax markay urayaan yes ficilka koowaad smell waa shiirin yani waxayna san kala raacdid ashiiris waxay noqon karaan wax arfaayo waxa la yiraahdaa scent ama fragrance okay fragrance is scent wa araf markay urayaan waxa la yiraahdaa odor yes it's an unpleasant smell yes ereyga afraad overhead waa wax markay ka koreeyaan madaxda ka koreeyaan they are higher than you yani above your head madaxda korkiisa yes birds flew overhead shimbiraha madaxa korkiisa mareen waa ereyga shanaad paddle waxa la yiraahdaa ulaha lagu wada doonida yes tusaale baaskiilka waxaanu isticmaalnaa pedal oo yani lugaha badeelka baaskiilka sidaas oo kale doonida ayadana badeelay leedahay okay labada dhinac sidaaba marka hirka loogu kala leexiyaa si doonida hore ugu dhaqaaqdo taaba la yiraahdaa paddle ereyga lixaad palette waxa la yiraahdaa dhamxanag waxa la yiraahdaa afkaada xagga gudaha qaybtiisa gudaha meesha kore okay carabka markii sida uu dhahdid aad ka xatoonaysid ama ku cuncunaynaysid ayaa la yiraahdaa palette yes af Soomaaliga kale dhamxanag baa la yiraahdaa erey kale ma hayo ereyga toddobaad paraphrase waxa waaye qof wixii uu yiri inuu qaabkii uu dhahay u sheegtid adigoo erey kale isticmaalay you are using different words erey kale okay yes for example paraphrase the sentence jumladan qaabkii aad u sheeg adigoo erey kale isticmaalay ereyga sideedaad p waxa la yiraahdaa yani for example let's say digir yes I eat peas asad lagu daran waxay noqonaysaa jamac p marka waa digirta cagaarka la yiraahdaa p erey sagaalaad persecute waa qofka in si naxariis darro ah loola dhaqmo yes persecute for example he was persecuted unfairly si naxariis darro ayaa loo ciqaabay the reason loo ciqaabay inta badan qofku waa inuu ka fikrad duwan yahay ama ka diin duwan yahay ama ka dhaqan duwan yahay yes the last word perspire waa inuu qofka dhidido to sweat for example waxaan leeyahay I perspire when hot anigu waan dhididaa markuu jiro kulayl marka perspire waxay isku macno yihiin sweat oo ah dhidid cashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day bye bye